caawa waxaan ka sheekeynayaa sheeko Soomaaliyeed, sheeko qosol badan dadkeenu iska jecel Soomaalida inay sheekooyinka ay dhageystaan. Sheekadan waxa weeye xaafad family ayaa waxay dhaleen markaasi laba wiil oo yaryar oo markaasi dad aqli la dabeetana labada wiil markaa hooyadii aabahood bay la seexan jireen. dabeetana habeenada kamid ah dabeetana odaygii islaantii xisaabtooda iska wata ayuu mid arkay. dabeetana markaas uu subaxii doonay inuu kala sheego markaasuu wariyaa xaalad waxa arkay moogtay odaygii iyo hooyadii aabo hal way isku fuurayeen. markaasuu markaa kii kale waxa ku soo balameen inaan caawa la seexan oo de marka la dhaw wariyaa seexda isnaamaan oo dabeetana halka hawshooda daca habeenkaasi ay ka wataan. dabeetana markii la yiri seexda wariyaa seexda la yiri habeenkii la soo gaaray la yiri seexda ayay islaameen ilaa ku soo balameen. dabeetana odaygii islaantii hawshoodii ay iska bilowdeen. marka sheekada waan ka soo boodayay. sheekadu waxa weeye habeenkii de leerkii iska damiyay odaygii islaantu maadaama ciyaalka la seexanaya waxay tiraahdaan de xawal leer iyo habaashidan in iska daaya. dabeetana leerkii iska damiyeen. dabeetana qofku markuu xoogaa ku jiro maaragtay qolka wax walba uu arkayaa. dabeetana odaygii islaantii hawshoodii markay bilowdeen ayaa midba markaa u jeeda. dabeetana kii kale soo jeedin moogtay. markaasuu wuxuu yiri waryaahidii uu yiri soo jeedisay buu isha farta galiyay moogtay. markaasuu wanaga daaday isha farta naga galina waxa waa u jeednaa. markaasuu waa ka soo horeeyaa bayleeno ma seexanba oo uu sii daawuriyay moogtay hawshaba ilaa bilow ilaa dhamaad uu la socda. laakiin faaraxa kale wuxuu yiri ma arkay uu soo jeeday moogtay oo suu wanaga daadaan isha farta naga galina waa u jeednaa waxaan kowde. marka dadka waxaan oran lahaa dadka maartay family-ga yaan ciyaalka de qolka lala seexanay qol gooniya hala seexiyo. waana sheeko Soomaaliyeed aadna weyn islaamay.